garoonka Qardaawi Stadium ee magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Geerashkacan ayaa galabta laga furay tartanka kubadda cagta ee macallimiinta dugsiyada magaalada Hargeysa qaar kamida ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay qaar kamida maamulayaasha dugsiyada sare ee magaalada Hargeysa waxaana kamid ahaa hadalladoodii maanta waxaynu joognaa garoonkii waxa lagu qabanayaa tartankii macallimiinta ee fasaxa ee iskuulada waxaa tartanka ka qayb galaya 8 iskuul waxaana maanta lagu furayaa labada iskuul dugsiga sare Al-Furqaan iyo dugsiga sare Aba Hurayra marka waa tartan sanadkan mar la qabto oo ah macallimiinta weeyaan kii ardayda ma insha Allah ka ardaydana uu bilaabmi doonaa si ardayda la isku baro kana waa si macallimiintu ay isku sii dhaxgalaan weeyaan oo horena u soo socday marka waxaynu ku dhiirigelinaa dhalinyarada inay maaragtaa ka soo qayb galaan ciyaar wanaag muujiyaan iyo isbarasho waxaan ku suganahay garoonka Qardaawi ee laga aasaasay xaafadda Geerashkacan ujeedadan u jeegnaa waxay tahay maanta halkan waxa ka bilaabmi doona barbilowga taariikh cusub oo ah isbarashada isdhaxgalka macallimiinta koob loogu magac daray koobka fasaxa macallimiinta oo runtii aan uga mahad celinayno walaalkay siyaasi Qardaawi inuu aasaaso goobtan mar labaadna in macallimiintii iskuulada kala duwanaa ee magaalada Hargeysa ay bartan isku yimaadaan si ay isku bartaan u wada jimicsadaan u wada aalamiiteeyaan waqtina u wada qaataan tankii macallimiinta secondariyada oo ay ka soo qayb galayeen 8 iskuul oo loo doonayo macallimiinta secondariga inay ku tartamaan koob ay kala qaadayaan ujeedada tartankan loo qabtay garoonkan Qardaawi loogu qabtayna waxa weeye isdhexgalka iyo isbarashada macallimiinta secondariyada ee kala duwan waanu dhiirigelinaynaa maamulka soo qaban qaabiyay tartankan ee doonaya inay dhammaan dadku ka soo qayb galaan waxaanu rajaynaynaa sida quruxda badan ee uu ku bilaabmay inuu ku dhamaan doono sidoo kale mas'uuliyiin lagu casuubay furitaanka tartankani macallimiinta dugsiyada sare ee dalka wax ka dhiga waxa aan halkan mahad celin ballaaran aan uga jeedinayaa walaalkay Maxamed Qardaawi oo isagu mulkiilaha garoonkan soona abaabulay waqti badan galiyay in halkan lagu iba furo lagu qabto tartan kubadda cagta ah oo loogu talagalay xilliyada fasaxyada inay macallimiinta dugsiyada gaarka iyo kuwa dawladuba ay ka qayb galaan ay ku ciyaaraan iyagoo oo sita matalaya magacyada dugsiyadooda waxaan isleeyahay waa tallaabadii ugu horeysay oo aan hore loo samayn oo markii ugu horeysay lagu qabanayo lagu furayo lagu hirgelinayo garoonkan Qardaawi Stadium maadaama aanu ka tirsannahay baahdi waxbarashada waana hal abuur cusub aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Maxamed Qardaawi hal abuurkan uu la yimi waxaana jecelahay in halka si aan baqaadno aynu sii dhiirigelino oo aynu hal abuurkaasi ku sii dayno haddii la yiraahdo tartankan kubadda cagta qiimaha badan oo loo asteeyay inay ku ciyaaraan macallimiintii kala duwaneed ee ka hawlgalaysa goobaha waxbarashada magaalada Hargeysa gobolka Murudsheex oo tusaale wanaagsan u ah in waqtigooda fasaxa loo sameeyo ciyaaraha noocana iskuulada dawliga iyo kuwa gaarka loo leeyahayba runtii waan hambalyeeynaa waxayna tusaale wanaagsan u tahay in xilliga fasax lagu jiro macallimiinta laftooda loo abuuro hal abuur kale oo isku sii bartaan isku sii dhex galaan jirkooda ku dhisaan caafimaadkooda qayb weyn ka qaadanaysa sportigani iyadoo oo jirka caafimaadka qabanaya maskaxda caafimaadka ku jirto waan hambalyeeynaa waa Mustafa Axmed Samakaab iyo Rudwaan Qurbaani telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa